السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan in tus doonaa meel dadku ay isu yimaadiin oo aad iyo aad u dad badan u population badan ee dadku aad u dhooban yihiin. waa meelaha markii dadku ay hordhiidaan kale ay cuntada ku korsadaan, cadaanku ku baashaalaan, ay ku raaxaystaan oo ay deli ku ii sheeg ay ilmaha iyo xaasaska ay keenay familiga meesha ayaa ku wadana soo raac watana waa halkan dadka ayaa ku raaxaysta, dadka familiga iyo ilmaha ay aad iyo aad ugu baashaala. waxay cuntada ku karsadaan qubayska ugu jeedin biyahaas, waxaas waa biyo waad aragtiin. hadda kaamera ayaa ii gidinayaa waa biyaha waxaas meeshan waas ku baashaalayaan weyn yar iyo weyn. halkaa ay joogaan maanta qamrigu cuntay ku cunayaan, way ku qubaysanayaan, aad iyo aad ay ugu baashaalayaan. halkan fiir ayadana fiir sidoo kale ayagana waxa dhan waa cuntooyin, dadkaas dhan cuntooyin ay cunayaan. meeshan waa baashaal time ilaa waxaa la imaanayaa subaxda hore ilaa waxaa laga tegayaa galabtii 6 o'clock markii 6 PM ayaa laga tegayaa. ama sida taqaan 6 o'clock baabuurtoodu waa kuwaas halkaas ku baakiman, waxaasoo baabuur ayaga iskale. hadda kuwaan waa kuwaan day ninka iyo naagtaan meeshaan ayay isku dhuuqayaan. marka waa kaas waa baashaal time ila socda saad awragtiinba. meeshaan waa wili waa kan day halkaan wili waaye. maanta ayaan isoo dooda kanoo kale waa kan sidaas ayaa lagu baashaalayaa. ay fahanteen naagta waa tahay ninka day waa isku dhuuqayaan meesha isku noqday. halkaa sidoo kale u fiirsha ayagana waa kuwaas dadkii saas u dhoobayn meesha meela socontay horta aad iyo aad ayaan halkan lagu baashaalayaa maanta. dadku cuntooyinkooda, cabitaankooda, biyahooga, waxooda dhan ayay soo qaadanayaan. baabuurtii baakamahaasi dhigteen halkan fiir waxa dhan waa family, caruur iyo ilmo, odayaal iyo islaamu dad family isqaba waay. yaa marka sidaan oo kale Soomaalidu haddii yeeli lahaayeen ay dadkooda maalmaha ii sheeg hurdida jimcaha kale ay dadku halkan kaysan lahaayeen, nimanka iyo gabdhaha iyo family dadka isqaba ay meesha ma lahaayeen saatan ay haleed. laakiin wax dhaqankan anagu dhaqan aan fahmi karna maaha. waa dhaqanka haddaan fahno dagaal way yaraalayaan waddanka xataa. dadku meeshaan fiirday kay naagta fiir cuntay ku cunayaan. aye bela socotiin halkaa ku raaxaysta shay fiir ayagan shay oo dhooman. waa kaamera ayaan kusoo dhaweynayaa arag qaabkan raaxadan fiiri. halkan Soomaali badan ayaa jooga. gabdhahaas dhan waa Soomaali mujeedaa. gabdhahaas dhan Soomaali waay oo kuwaas gabdhahaas dhan waa Soomaali weey. ninka naagtan waa kuwan waa soo lugeynayaan kaas waana kaas si loo balqbalaqayaa meesha meela socontay horta. yaa waa kaas qaabkaas haddii aan anagu fahanno oo sidaas aan wada soconno raggeena iyo dumarkeena iyo ilmihiina aan gacnaha isku qabsanno dagaaladu xataa way garaa lahaayeen. wax family ma dagaaleen. waayo halkaa markii la yimaado ninka iyo naagtiisa way sheekaysanayaan, way isfahmayaan, way isdhexgelayaan, waxyaabo badan oo ay guriga wax la waayay meesha ku xalinayaan. laakiin haddii gabadhii aad ku hayso guriga oo guriga ay ku dhusan tahay iyo ilmihii maanta inay ku dhex jirto wax badan ayay kaa qaranaysaa. markan waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed picture hadda way nagu celinayaa camera waxaan ku celinayaa horay ayaan u shadayaa sida hadda ay meeshaas baashaal time-ka ila fiirsada. sidaas ragga Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay u dhaqmaan family-ga. halkan waxyaabahan ayaa lagu xaliyaa sida gabadhu markii halkan aad keeto bannaanka oo ilmihi meel wafristay ilmaha aad baashaal isu deedin wuxuu niga fogaadaan. waa waxyaabo badan ayay gabadhu ay ku sheegaysaa oo kaa qarsoonaayo aad ku fahanteen isha guriga. marka sidaas sameeya markasta dhinacaas u socda. hadda ayaan hore ugu qabanayaa ila socda. وكاس مارك تضي وكاس فيري وقبر ينين وكاس
nin inaagtiis waa sheekaysanayaan kuwaas waa ka odagaa fiir waa Soomaali halkaa ka muuqda waa kaas ilmihii ayuu soo qabtay waa kaas ninkaas kale ayaa loo baahan yahay ninkaas kale ayaa loo baahan yahay daadeeriya ya kamerada way ka fogtay xogaa waayo kamerada haddii lagu qabto ayaa laftiga halis waa kaas channelkan waa inaad ku xiraatiin waa inaad la socotiin waa kaas Honest challenge subscribe comment share ku qabto okay halkan ayaa inii saaraya waa kan wiigina waa kan day beershaday ya maaragtiin waa ka fiiri gabadha hadda waa Soomaali ya marka hore ayaan u dhawaanayaa wax yar hore ayaan u dhawaanayaa hadda islaanta anta farasta baaskiilkeeda wadataa kaas camera ayaan xogays waa iska fogiyey waa kaas wajiyaashu is fiican waa kaas ya wakaas islaantaas baaskiilkeeda wadataa waxaas waa gabar baaskiilka wataa ya marka ila socdaa waa kaas ragga Soomaaliyeed iyo dumaradu iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed haddii saas oo kale baashaal tamis ay lahaayeen dadkan ku sheekaysan lahaayeen ilmaha markii meelaha ciyaarta la geeyo goobaha ciyaarta ninkii inaagtu way isfahmayaan wax isu fahmayaan deelaba markii dabaysha ay ku dhacdo madaxu waa furmayaa moogta stressna way tagayaa gabadhu marka wax badan ay sheegaysaa oo qarinaysaa iyo ninkeeda u sheegaysaa waxa la warniyo waa la isla qosliyaa waa la isla dhexgeliyaa marka sheekadu halkaas ay ka furmaysaa ay fahanteen horta meel socotiin okay da ila socotiin waa fiican tihiin da ila socotiin waa fiican tihiin waa gaaminaya hadda kuwaas kuwan intaa lagu cunayaa meeshaan oo dhan yo okay away ayaa kamera fulinaya ila socdo waa kaas video yarka waxa uu talagalay dadka family-ga ayaa video uu talagalay in fiirsadaan in ay si fiican u fiirsadaan gabadhaas waa Soomaali si jidda waa kaas ilmihooda odayga waa kaas ag taagan ma fahanteen caawa si fiican ay u seexanaysaa iyo odayga si fiican ay isu fahmayaan waayo banaanka ay maanta soo baxeen meel ay soo wareegeen maanta ya okay marka awoodtu waa kuwan marka fiidiyogan waxa ugu talagalay dadka family-ga sida hadii la kurin sheeg nin inaag isqaba dad macnaha family-gu markay banaan soo baxaan malaha fahma kuna markay banaan soo baxaan waxyaabo badan ay gabadhu ninkeeda u sheegaysaa waxay u sheegaysaa oo kale ninka way sheekaysanayaan way kaftamayaan ma kaftamaan dadku furfura meesha imaanaya waxyaabo badan laga sheekaysanaya من هسه laga sheegsan laakiin hadii gabadhii guri maanta oo joogto oo hal mar xataa aad banaanka aad gay wax ay ku sheegayso lama arko marka ragga Soomaaliyeed waxa ay lahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed waa inay qaabkan sameeyaan mar kasta sidaan ay sameeyaan waaye waa kaas hey qaabkan ay sameeyaan waa kan fiidiyowga ayaa iga hadlaysan waa hey qaabka in sameeyaan way maalin kasta in sameeyaan way ashaal time kaas in sameeyaan way
وكاس سياس إلى لوب بهينس إنا صبينا مرة يمروين وين كاس في يوغان إتا أيام كو إكينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.